الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درسيان وحاو كبلاميا آيات 750 كنمد سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم درسيان وحاو كبلاميا آيات 750 كنمد سورة يونس وحاو ربي سبحانه وتعالى آيات كدرسيان نوغو عدين يا كو إلهي سبحانه وتعالى وإنه صدري رسول كان إنه صديبي كتاب قيمي بدن إنه صديبي قبوح إنه صديبي موعدة وانو آيات قرآن أو لينقو لحظ لايو لينقو عقل علينيو وحلينقو تصالين بالله سبحانه وتعالى إنه صدتشي كتابك قرآنك وحو رب ليه وكتاب قيمي بدن وكتاب دواء وحو ليه أو دويني بوقت إيا حنونة لابتا كتيرا حنونة لابتا كتيرا أيو طبيب إيا وهدي أي تاي شاكي هدي أي تاي جهلي هدي أي تاي أوهامي خرافات waxaa caqliga ka guuxaya waxaa laabta ka karaya ee cudur iyo bukaan ayuu nabaradana dhayaya xanuunadana uu ka bogsiinaya bi rabbi subhanahu wa ta'ala rabuuxay kitaabkaas wuxuu hagayaa qofka bini aadmiga hagu u yahay hage qofku hagaya nolosha dhexdeedu hagaya wuxuu u jiidayaa jannada iyo wanaaga iyo liibaanta iyo quruxda ay u jiidayaan rabuuxay kitaabkaasi waa naxariis ilaahay baa bini aadmiga u turaya oo waa distoor waa nidaam waa qaanuun iyaga wixii ay dani ugu jirtay oo dhanba u dhamaystiray ibn rabbi subhanahu wa ta'ala waa naxariis qofku siduu u dhaqmi lahaa siduu dadka kale ula dhaqmi lahaa siduu rabbigii ula dhaqmi lahaa
siduu kownka intan leegula dhaqmi lahaa ilaahay wuxuu siinayaa nidaam iyo qaab iyo hab qurux badan oo uu ku socdo oo naxariis ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyihi aayadda kale dadow ilaahay fadligiis iyo galladiisa iyo naxariistiisa aw qur-aanka idiin soo dejiyey uu islaamkan quruxda iyo qiimiga badan idin siiyey waa nicmo iyo deequu rabbi idin siiyey ku baashaala oo ku farxa oo ku beerraqa buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay baa idiin keenay buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala weliba qur-aankani iyo islaamkani wuxuu ka qiimi badan yahay wax kasta ood ururisaan oo adduunye ah qur-aankaa ka qiimi badan islaamnimadaa ka qiimi badan buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu tilmaamay haddana aayaadu ku canaananaya dadka uu leeyahay dadow maxaa idinku dhacay ilaahay isagoo kitaab idiin keenay ilaahay isagoo waxna idiin xalaaleeyey waxna idinka xarimay unbaa idinku jeebka kala soo baxdeen xalaal iyo xaaraam kale buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala war ilaahay qofka ku been abuurta ilaahay kaana siduu u geli buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu tilmaami doonaa arrimo badan ayuu aayaadkan ku tilmaami oo intuba ina tusaya ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa qaala tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyihi yaa ayuha annaas dadow yaa ayuha annaas dadow qad waxaa dhaba jaa'adkum inay idiin timid mawcidatun waana ayaa idiin timid buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala oo min rabbikum xagga rabbigiin idinka timid yaa ayuha annaas dadow idaylka saad u dhantiin dhammaantiin weey qad waxaa dhab ah jaa'adkum inay idiin timid waxaa xaqiiqo ah waxaa sugan jaa'adkum inay idiin timid mawcidatu waana ayaa idiin timid kitaab qur'aana idiin yimid kitaabkaasoo ku jirto waana la idin waaninayo ou idiin caqli celinayo uu wax idin tusinayo uu idin baraarujinayo khaaliqii idin abuurtay buu rabbi subxaanahu wa tacaala wa shifaaun dawo ayaa idiin timid limaa shaygii iyo wixii dabiibay soo dawaynaysa fi suduuri laabta ku jirta buu rabbi subxaanahu wa tacaala dadow wa shifaaun daawaa idiin timid dawo dawadaasoo limaa wixii shaygii dabiibay soo dawaynaysa fi suduuri laabta ku jira urxumadii xasadkii shirkigii shakigii wixii laabta ku jiray ee qurun ahaayoo dhan dawo dabiibaysa ayaa idiin timid wahudan hanuun baa idiin yimid kitaab qur'aana oo haga ah oo idin tusaya wax waraxmatu naxariis buu u yahay kitaabku lilmu'miniina dadka mu'miniinta buu rabbi subxaanahu wa tacaala intan tilmaamoodba waa qur'aanka qur-aankii waa kow waa waano ilaahay baa inoo soo dejiye waa waano ilaahay baa ina leeyahy waxana sameeya waxana ha samaynina kitaabka qur'aanka ah iyo islaamku siduu u dheeyey waaba laba erey waa ifcal laa tafcal waa sidaa yeel iyo sidaa ha yeeli wey ilaahay waanadaa qiimiga badan buu idiin keeno qur'aanku waa waano laba qur-aanku wuxuu dhayayaa wuxuu bogsiinayaa wuxuu dabiibayaa laabta waxa ku jira uurgumaar iyo qurun iyo xasad iyo shaki iyo jahli iyo shubuhaad ah ayuu nadiifinayaa qur'aanku saddex qur-aankani waa hudan hanuuniyo wey wuu idin hanuuninayaa dadow oo muxuu idinka hanuuninayaa baadidii buu idinka hanuunin toosnaantii iyo wanaaggii buu cagta idiin saaraya qur-aankani waa raxmatu naxariis weeye ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo dadow dadka iimaanka leh ee iimaanka u ehelka ah qur-aankani naxariis buu u yihi ay ku raaxaystaan yaa ayuha annaasu dadow qad waxaa dhaba jaa'adkum inay idiin timid mawcidatun waano min rabbikum xagga rabbigiin ka timid wa shifaaun daawo ayaa idiin timid amba dawadhe limaa kii ayuu qur'aanku daweyn fi suduuri laabta ku jira
وهدى هنوي ورحمة نحريس بوي للمؤمنين مؤمنين كتابك القرآن كان حنونا ذا تلك بوكسيني سيد بوكسيني كوا لابت waxaa laga yaabaa dawooyin kale inaad qaadatid oo xanuunadii jirka ay ku bogsiyaan laakiin xanuunadii qalbiga xanuunkii ku dhacay wax kale oo dabiibayo quraanka ay ma jiro quraanku shubahaadkii uu ka saari shakigii uu ka saari jahligii uu ka saari gaalnimadii uu ka saari quraanku waa dawo ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa wax ku dabiibayo ku daweynaya waxaan ogsoonahay nabiga alayhi salaatu wasalaam quraanku dadka ku akhriin jiray ku daweyn jiray saxaabadiisu quraanka ku akhriin jiray dadku u tilmaamuu nabigu salawaatu illaahi wasalaamu alayhi hadaad yaabtaan jirkiina quraanka ku akhriyo mariya marka habeenkii seexanaysaan wuxuu nabigu sameyn jiray qul wallahi yaqul a'udhu birabbil falaq yaqul a'udhu birabbin nas isku akhriin jiray istabiin jiray xirsi uu xiranay nabigu salawaatu illaahi wasalaamu alayhi ee quraanku jirkan buu dabiibaya ونقول صومنا سورة الفاتحة صحابي نكيل قنيني السكرات كو أخري فاتحة ذو بريح يلوبكسدي كتفي قرآن شركي ودويني قلبي جينا ودويني يا يو شكي يشبهات كي ويحو نبوك صاري ربوح عليه سبحانه قل للنبي الله بفضل الله إلهي فضل جيس إيه وبرحمته نحريستيسا فبذلك كاسفا ليفرحوها كفرحين هو كاسا خير كخير بدن مما كي يجمعون ورسليان الدنيا مفسرين بفضل الله وبرحمته قال واحد هذا بفضل الله إلهي فضل يسوى قرآنك نحريستيسا وإسلامي ماذا قيب كلنا وحويه ويكل الرجالونه وحيد هذا فضل الله وإسلامك برحمته نوى قرآنك وإسلام قريجين وإسلامتك إلهي سبحانه وتعالى عليه قل للنبي الله بفضل الله إلهي قلديس إلهي دقالين تيس وقرآنك إذن كسو دتشو إذن كل دقالي إيه وبرحمته نحريستيس وإلهي إذن هو يو إسلام إذن كردقي فبذلك كا قرآن كا إيه إسلام كا إذن يمد أوجد فليفرحوا هفرحين بالرب سبحانه وتعالى حكب الرقين كاسا أحق نمبضا إنه كفرحان هو إستغانا خير كخير بدن مما كي يجمعون وحي ورسانيان بالبركة إيه دلالك أدوية أو نمبا قرآن كي إسلام ماذا كقيمة بدوي إلى دو قرآن كقصية أو أهل القرآن نقطي واحد نقونيس أهل الله إلهي أهل كيسبان نقونيس لهم حول أهل القرآن وأهل الله وخاصته قرآن كقوة أهل كي وأهل كي إلهي يكون إلهي صاع وهاب النبي صلوات الله والسلام عليه درجات قاعد هذا القرآن كأهل النقط إسلام ماذا هداد أهل النقطي وبسوي إلهي هداد سكول بيبتو أو المسلم نقطي أو النب نقطه وبسوي واللي بانتي قدام بيسوي إلا وحوي إن الدين عند الله الإسلام إلهي اكتسى وحا الله أقبله إلا دقيستو إلا قرر على النقونية وهو إسلام نمو إلهي وحي كقيمي بدين الدنيا ولنبي كقيمي بدين برب سبحانه وتعالى صوتوا معي قرآن كان وكلها هاري إسلام نمدنا ويكوها هاري لكن الدنيا بالبركادي ويسكتك دون هدي الدنيا إلهي أكتسى جناح بعوضة هدي بالكناعو بالكيد أم بقرب كيد هدي لا إطال تاي أو لا قيمة تاي يعني وحبي أهان لي ويكل يدتا باللي ويكل يدتا وحقيمة الدنيا سبيدي بجر على وشي فانية وعسكريات ووحكو نافية وإنمانيسا قيمة إلى ذي بجر لكن إلهي أكتي سواحة وباقي قرآن ما أنت قيامة مركا لقو سوچوش إيه لقو سوتاقو إيه قرآن كي ويمادو إساقيو إرقيني ولا ربو كانوا إيه الكيها كانوا إيه أخريه
إيسيدا إلهي حلوان السيدين يا أبو النبي وحلو إلهي والسيدين يا صلوات الله والسلام عليه قرآن كحيسانه قرآن كوا قيمه سواكا إسلام لماذا وامعي وحويان قبرك مركا الله ولو سؤالي لقوا ويدين إيبا لقوا ليه دين تاذو معايا هاي وإسلام بس قبوا بيسوات بدبانس هذا انت أجرين ويدو أو تكون شوابي ويدو خلاص ويدو واضع على يتعانكاس عذابك هل كان قبرك وكاقب برامية اللي هو قريقي كواد قريه آخره marka rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu islaamnimadii iyo quraanka ku farxeen adduunyada iyo waxa urinayaan isaga ka khayr badan huwa isaga khayrun ka khayr badan ka qiimi badan mimma ki yajma'un ay urinayaan rabbi subhanahu wa ta'ala iska daa inta islaamka dhan bay iska daa quraankan qiimiga badan iska daa waxa weeye nabigu wuxuu ninka tukada ragcatay laba ragcadood salaada subax ayaa uga khayr labada ragcadood salaada subax ee sunnaha awliba ninka tukadaan waxa uga khayr badan adduunyadii waxa ku dhex jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam naadu malay salaadii qaybi rasuulnimada kamida ayaa leeyahay adduunyadii laba ragcadood waliba sunna ah adduunyadii waxa ku dhex jiro nabiga ka khayr badan ka qiimo badan idan ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay adduunyada waxa la urinayo dhintaba ka khayr badan haye inagu maxaan ku dhaqanaa marka inagu quraanna waruma hayno islaamnimadii waan garab soconnaa adiga arkay waan mashquulsanay adduunyan kala rogayna waxbaan isku haysanaa waan rogmanaynaa waan xiiqsanahay haddana waxa weeye waxaan ku xiiqsanahay waa shaygaa la leeyahay qiimi ma malaba diintii baa dayacan quraankii baa halkan siigadu ku dishay cid akhrida ayaa la leeyay waa kaa dee aynu soo aragnay saxaabiga abu hurayra iyo abu dardaay intay yaabeen inuu abu hurayra dadkii arkay suuqii oo gowdaya sayladii oo la buuqayo dadkii oo iswada weydaaranaya balkaale barasraanba untan waxaga u socdiyo waxaga u socdo bari iyo galbeed waa lagu qaadaya Soomaa markuu arkay buu yaabo dadkii buu ka dhaxqaylay wuxuu aqligoodu aad wuxuu dadaw waa dhaxalkii nabiga la qaybinaya ninkii ka qayb galayo dadku dawixii ay u cararayeen ay garanayeen bay moodeen adduunyay moodeen rib wala soo jabayba waa halka lagu qaybinaya masaajidkii nabiga wala soo tuulmayba adduunyada fara laga soo inta nin walba in kala ku darleeyo ninteedu waa intaaba oo wax dhamaanaya laakiin waa mashquul masaajidkii markii la yimid ayaa wax lacag oo taale iyo geel iyo lo iyo ari ku xareysanayo adduunyo kale meesha taalaba waa la waayay waxa waraabu hurayreed dhaxalkii la qaybinay halku yaala wuxuu halkan mid baa quraan ku aqriyay halkan mid baa ku tukanaya dhaxalkii nabigu waa ka buur nabigu kama tagin la dirham wala dinar faran iyo shilin iyo dollar iyo euro midna nabigu kama tagin ee wuxuu ka tagay maxay wuxuu ka tagay xalaqadaha digriga la fadhiyo iyo quraanka la aqriyay iyo salaada iyo dhaxalkii nabigu waa diintan buu ayuu Abu Hurayra hadaba qofka muuminka waa inuu garto ilaahay hadduu islaamnimada ku siiyo oo quraankana gacanta midi ku geliyo qalbigaaga uu galo wax ka qiimi badan ma jiro wax ka maqalib ma jiro adduunyada oo dhan waa lagu siiyay ilaahay markuu inta tilmaamay rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qul nabi allah qul waxat ya nabi allah ara'aytum warbal iga warama ma ki iga warama أنزل الله إله سودتي لكم ذيك ودي سودتي أو من رزق وحلقوطة أو فجعلتم آذيشين منك حقيسة حراما حرام بركي أتكدكتين وحلالا حلالا أتكدكتين بركي قل ده الله والم إلهي أي أذين لكم يدين فصحوا يدين أقلال إلهي رزقي ودسيي ayaad badna xalaalayseen badna xarimteen wanagi soo marnay geeli iyo xoolii iyo baxiiradii iyo saaibadii iyo waxa oo dhan bay xarimeen waxa weeyaan neefkii geelaha hadii uu ninku intuu nadro yiraahdo ilaahu dad saayishada badbaadisa hal baan ku siiyay hal uu usha ku dhufanay sii deynay wan soo marnay awrka haduu inta soo daood abaahiyo oo intiiba dhalaan kan ilaahay baan siiyo ornay farax ka qaaday eeg xoolihi xalaashaaba ilaahay siinay
bal beertiisii intuu kala jeexo ayuu odhanaya ilaahu intaana adiga ale inagii soo aragna intana aniga ale intaada kuguma imaada intayda haygu iman soo saa maaha laakiin maxaa dhacaya intana ilaahyaduu siiyey hadday dabayli timaado inagii ancaam ku soo marray oo ay soo qaado qaybtii ilaahay uu ku magacaabay ay midho ka soo daadiso oo ay xaggantii ilaahyadii ay u soo daadiso wuxuu odhanayay ilaahay uma baahno oo waxaan waxba u noqon maayo ilaahyadii u daynayaan ba isaga iska qaadanaya hadday laakiin sida kale u dhacdo waa inaga ku soo marray qur'aanka oo xaggan intay ka timaado ay xaggan u daadisa beerta ilaahay haddana ilaahay waa laga soo qaaday tan ilaahay isagu waa ka qaniyo isagu hadday beertiisu baado isagu ha is asturaan leeyahy waa laga soo qaaday maxaa la dareemaya marka inuu kuwani ducafo yihiin yani ilaahay da isagaa beertiisa waa kan hadday tiisu baado isagaa biyaha hagaajiyaan leey tan kale hadday baado ilaahay tiisaa laga kabaya oo wax looga soo qaaday eeg waa ilaahay risiquu siiyey ayuu kala qaybinaya gabdhihii noloshuba ku aasayba waa risiq ilaahay uu siiyey xagga xalaashana shay xaaraamana uu xalaalinaya maxaa ka mid ah baktiga idhaan waa xalaal markaasay ku doodayen waa inagii soo aragnay oo nebi maxamedow ma waxaad leeday ilaahay wuxuu bireeyeyna waa xaaraan wax adigu biraysana waa xalaal ba idhaha baktiga ilaahay baaba bireeyeyba ka ilaahay uu bireeyaaba mudan in la cuno bay idhahdeen ilahay wuxuu xarimo baktigiia waxaad la yaabantay gaaladii horeo ma bilaa caqli bay ahayn baad leeday adigu isku kaale bal rag baan tagoogta cuni soo maha rag baan lafaha jabsan soo maha rag baa le tagoog bay iga tagay rag baa le maxay iga tahay soo maha waa kaa unta ilahay wuxuu xalaalkaa ka dhigaad xaaraam ka dhigay soo maha nin baa anu waxaanba cunabo hidaba uma lihin buu kuleeyahay hidaba uma lihin waxbaa ka cayade waa waxaa unta waa sidaa un waxaa un weeye wax kale maaha ilaahay subxaana wa tacaala shayku xalaal kaaga dhigay maxaad xaaraam uga dhigay cun ilaahay wuxuu kaa xarimayna maxaa ku daba wata geeda gaaleed iyo balaaye iyo qurun iyo inkaaro ayaan daldalaynaa wax kastaan isku gurayna war ilaahay wuxuu kaa xarimay iska daa maxaa ku daba wata markaasa wuxuu ku leeyahay oo maxaan ku noqonayo waar ciidan waa xalaal ciidan haddaad birbiratood cuntid waxay fuqahaadu mutafiqu inay xaaraamtay waayo dee jidhkaagay dhibaysa sigaar iyo jaad haddaad isku gurtid naga war iyaguma jidhkay may naaxiyaan jidhkay barariyaan ma oyaan adaa garantooda waxaad arki doontaa markaas wax ilaahay uu kaa xarimay iska daa ilaahay wuxuu xarimay waa daf meel walba uu yaalla ribadii baa la xarimay wuxuu ku leeyay wax kaloon qaataa ma jira ribaa la wada guranaya ribaa lagu iyo casee maad maqashay iyo caseed waa ribo un waa nin wixiisii waa shoolad waxaaga maxaa bilaa baraka ka dhigay kugu filaan laaday ilaahay wuxuu ku siiyey baa ku deeqi waaydi ilaahay hadduu intuu ku siiyey ay ku deeqi weydo faqriga unbu labada indhood kuu saaraya in yarood haysta haddaad alxamdulilah tiraahidna ilaahay qinaagaagu qalbiguu gelinayaayo qalbigaagu baad ka dhargeysaaba alxamdulilah baad leedahay waa adiga arkay mid yaroo waxba haynoo faqiiri wuu faraxsan yahi mid wax walbana hayaana waayiraa ka baxaya wa markaasuu ku leeyahy waan shidmayaa u buuqsan yahi adduunyadii o dhan buu haya uu buuqsan yahi adduunyadii baa karinaysa marka ilahay wuxuu leeyahy qul dha nebi allow ara'aytum bal iiga warrama maa kii anzala allahu ilaah uu soo dejiyey lakum idinka oo min risqin risqa wax la cuno ah oo xalaal ah bal iiga warrama fajacaltum waxaad yeesheen minhu risqaa xaggiisa xaraman xaaraan baad ka dhigteen barhkii oo idinkaa iska xarimay isagoo xalaala qaarna wa xalaalan xalaal baad ka dhigteen isagii oo xaaraama qul dha nebi allow allahu warma ilaahay ayaa adina idiin oggolaaday lakum idinkoo idiin fasaxay sidaa oo amarkaa idin soo idin waxna xalaaleeya waxna xarima am mise cala allaahi ilaahay dushiisa ayaa taftaruuna ku been abuuranaysa am mise cala allaahi ilaahay dushiisa taftaruun ku been abuuranaysaa bimujarad ma iftiraa iyo buhtaan baa ilaahay ma been abuurasho aad ku been abuuranaysaan ma gardarriya eedabxumo unbay idinka tahay mise ilaahay baa idiin fasaxay ku dha nebi allah rabbi wuxuu leey wamaa danu ladiina haddaad ilaahay ku been abuuratay oo ilaahay waxaanu xalaalayn aad xalaalaysa amba ilaahay waxaanu xarimin aad xarimtid waa khatar wey had iyo jeer inaad foojignaati wey ilahay wuxuu leey wamaa danu ladiina kuwii maxay ilaahay ka malaysan
wamaa danu ladiina kuwii malahoodu muxuu yahay yaftaruuna abuuranayay cala allaahi ilaahay dushiisa alkadiba been kuwa ku abuuranaya muxuu malahoodiyo ilaahay ka malaysan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo buli rabbi subxaanahu wa tacaala kuwan u badheedhay ilaahay inay ku been abuurtaan oo iyagu xagga naftooda wax ka xalaaleeyaan amaba ay wax ka xarimaan amaba ilaahay wixii u diiday ay dayn waayaan rabbi wuxuu leeyahay wamaa danu ladiina kuwii malahoodu muxuu yahay maxay kuwii malaysan ilaahay maxay ka malaysan maxay filanayaan kuwa yaftaruuna abuuranaya cala allahi ilaahay dushiisa alkadiba been kuwa abuuranaya ilaahay maxay ka malaysanayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo buli rabbi subxaanahu wa tacaala wamaa danu ladiina kuwii malahoodu muxuu yahay oo ilaahay ka malaysan yaftaruuna abuuranaya cala allahi ilaahay dushiisa alkadiba been yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ilaahay maxay ka filanayaan qiyaama ilaahay maxay ka sugi sow ilaahay naari maayo soo cadaabi maayo maxay filanayaan ina allaha allah laduu fadlin alla dhaqaalayn u saaxiiba weeye cala naasi dadka uu dhaqaalaynayo walaakinii akarahum dadka badidoodu laa yashkuruun ilahay uma shukrinaqayaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala oo ilaahay muxuu ku dhaqaalaynaya ilaahay wuu u nicbeeyey wuu u naxariistay haddana cadaabkii buu ka dibdhigay oo uma soo dedejin haddana rusul buu u soo diray haddana kutub buu u soo dejiyey waxaayoo nicmo abu siiyey rabbi wuxuu leeyahy ina allaha allah laduu fadlin alla dhaqaaliya fadli u saaxiiba weeye cala naasi dadka uu karaameeyey ou dhaqaalaynaayo qur-aan buu u soo dejiyey rusul buu u soo diray cadaabkii buu ka dibdhigay walaakinii akarahum badidoodu laa yashkuruun ilahay kuma shukrinaqayaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay nicamkaa faraha badan uu siiyey kuma shukrinaqayaan way dafirayaan way diidayaan way beeninayaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala waa intooda badan waxa saa samaynaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu tilmaamayaa markaas waxaa la doonayaa mu'miyo ilaahay nicmadu ku siiyey inaad ku shukri naqdid wuxuu ilaahay ballan kuugu qaaday intaa haddaad ku shukri naqdid ilahay inuu kuu biirinayo ilahay haddaad intaa dafirtidna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaa madoobeynaya ilahay markuu intaa tilmaamay halka nebigaa lala hadlayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh innagana khitaabkuu inagu socdaa ilaahay wuxuu leeyahay nebi allow amba mu'miyow xaalad kuma jirtid xaaladaha adduunye ka mida kuma jirtid baa la leeyahy xaaladdaas waxay doontaa noqoto wax kasta midkeed muxuu ku jiraa mid baa wax iibsanaya mid baa wax dhacaya mid baa tukanaya mid baa qur-aan akhriyaya mid baa dad waaninaya mid baa been afuufaaya xaalkeenna waa saas oo ma waxaa la leeyahay mu'min yahow amba qof yahow xaalad kuma sugnidid amaba qur'aan ma akhriyaysid amaba shaqa waxay doontee ma qabanaysid ilaa haddii kale shuhuud baa agtaada malaa'ig baanu kugu darray buli rabbi subxaanahu wa tacaala wax walba waa qoraya wax kastood samaynaysaba waan kuwa helinaa buli rabbi subxaanahu wa tacaala anaa ku og oo ku daalacanaya malaa'igtaydii baa dhigaysa oo qoraysa buli rabbi subxaanahu wa tacaala allahu akbar bal waxaad qiyaasta qofkii u zinaysanaya bal adigoo rakudul joogaan ka waran waa la dhuuntay soo maa ilahi wuxuu leey maya waaban ku eegayaan waxbaad xadaysaa tuug baad marag baa kudul jooga waa lagula jooga ilahayna waa kula joogaa malaa'igtii wax dhigaysana way kula joogtaa been baad afuufaysaa waa lagula joogaa qur-aan baad akhriyaysaa waad wardiyaysaa waa lagula joogaa wax kastood qabataba anigu waan kula socdaa buli rabbi subxaanahu wa tacaala malaa'ig baa dhigaysa markaasaa ina nebi aadan maalinta qiyaamo marka la keeno ilaahay wuxuu tilmaamayaa subxaanah wamaa yaczubu can rabbika min mihqaala dara ilaahay kama libdhayso kama qarsoomayso ma ciilayso wax yaryarna ilaahay kama libdhayso wax walba uu la socdo kitaab baa lagu dhigaya lixu maxfuudkay ku taallaa qiyaamaa lagu horkeeni ina nebi aadan waa imtixaano waxaa ilaahay uu maraga ka ahaa
ee malaa'igtu ay maragta ka ahayd ee lawx maxfuudka lagu qoray ee malaa'igtii dhigaysay ay dhigtay ayuu isku dayay haddana inuu dafiru kala kiciyo maalinta qiyaama markaasuu leeyay rabbow anugu kitaabkanba ma garanayo igala tag buu leeyay weligeyba ayaa iga qorqoray goormaa layga qoray ma ogi kan anu ma garanayo wax olan dafirayna anu ma garanaynaa sooma ma ogi marka doonta dadka indhaha umadoweysa ma ogi baad waxaad ogeydi waxaad ogtahay markaasaa la haye waa kuwan malaa'igtan baa maraga rabbow kuwan adduunyadiiba isbaanaan aqoon weligeyba isbaanaa arag xaggeen iska salaamada weligey isbaanaa arag ma ogoli markaasaa la maya war waa sidee markaasaa isagii baaba isxukumayaba wuxuu leeyahay rabbow waxaa doontaba wado ilaahay basuula hadlaya anigu marag aan naftayda ahayn oon ogolay ma jira buu leey haye marka war adigoo lagu haystoo kule anugu intaan qiraa lahay een qiranaya unbaa sugane waxa kao dhan ma sugan allahu akbar rabbow marag aan naftayda ahayn abadan buu oo saw rabbow dulmiga maad xarimin dee maxaad ii dulmiyi buu leeyay ilah wuxuu leey bas ma marag naftaadu baad ogoshay ha khalaas adaaba maraga baa le maad baxaysaa xubnihii adigu aada lahayd baa laga hadlinaya markaaba waxaad samaynayso o dhan bay daldalayaan wixii aad dafirayso o dhan bay kugu qeexayaan oy kugu qirayaan markaasuu haddana weerar kaleu qaadaya lima shahidtum calayna qaaluu andaqana allahu aladii andaqa kula shay war maxaad noogu marag furteen markaasaa xubnihi waxay leeyihin dee ilaahay baa naga dhawaajiya anagoo naga hadliyay ina nebed halkaa buu gaadhaya markaa rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyihi wamaa takuunu ma ahaatid nebi allow ama mu addoon yahow wamaa takuunu ma ahaatid nebigaa lala hadlaya fii sha'nin arrin kuma sugnid nebi allow fii sha'nin arrin kuma sugnid wuxuu doonaya ha noqday umuurta ka mid a wamaa tatluu ma akridid minhu sha'nigaa iyo arrinkaa xaggiisa min qur'aanin qur'aan kama akridid tilmaamayoo muujinaya amba wamaa tatluu ma akridid minhu min alqur'aan damiirka waxaad u celin kartaa sha'nigii ka horreeyey qur-aankana waad u celin kartaa wamaa takuunu ma ahaatid nebi allow fii sha'nin arrin umuurta ka mida mid ku sugan ma tihi wamaa tatluu ma akridid minhu arrinka aad ku sugantahay xaggiisa min qur'aanin qur'aan ka warramaya ma akridid walaa tacmaluuna ma samaysaana min camalin shaqo ilaa haddii kale kunnaa waxaan ahaanay calaykum korkiina shuhuudan kuwa maragyaala bu rabbi subxaana wa tacaala marag baa nahay bu rabbi subxaana wa tacaala shaahidiin baa nahay ruqabaa idin ilaalinaya waxaad samaynaysaan o dhan waan koobayna weliba id wakti baan maragnaay tufiiduuna aada dabbaalanaysaan fiihi arrimaha dhexdooda xilligaad dabbaalanaysaan xilligaad ku mashquulshantihiin xilligaad ku wareersantihiin ayaan maragnahay buli rabbi subxaana wa tacaala markaad waxbaba war ka hayn xaaraanta aad laba canlaynayso beenta aad daldalayso macaasida aad durduuranaysid markaad isku labarogaysid ad ku xaragoonaysid markaa baan u jeednaa buli rabbi subxaana wa tacaala qur'aankii iyo xaqii iyo diintii markaad nuur calaa nuurteed macaansanayso markaa baan eegayaa xaalada doontaba ku jir ilahi wuxu ley markaad dabbaalanaysid ee dhex muquuranaysid ee sida mawjadaha u dhex kackacaysid markaa baan ogay buli rabbi subxaana wa tacaala maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid ilahi wuxuu ley hadal kuma hadla ina nebi aadan hadduu erey ka soo dhawaaqo waxa agtiisa raqiibun catiid malag gaadh ah oo xaadir ah oo wax walba dhigaya buli rabbi subxaana wa tacaala ayaa la jooga kiraaman kaatibiin kuwa wax dhigaya oo naamuusan baa jooga meesha ilahi subxaana wa tacala wuxuu ley wamaa takuunu ma ahaatid fii sha'nin arrin umuurta ka mid ah wamaa tatluu ma akridid minhu arrinkaa xaggiisa min qur'aanin qur'aan ma akridid walaa tacmaluuna ma samaysaan min camalin shaqo ilaa haddii kale kunnaa waxaan ahanay calaykum dushiina shuhuudan kuwa marag ah id wakti baanu markhaatiyanahay goobjoognahay tufiiduuna aada dabbaalanaysaan fiihi dhexdiisa khayr iyo shar wuxuu yahayba ilaahi subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahy wamaa yaczubu kama qarsoomayo kama libdhaayo can rabbika rabbiga
من مثقال ذرة وحوير وحلاق في الأرض يقولك نحيسة كجمال بديو ولا في السماء إركا نحيسة كجمال بديو ولا أصغر متكيري بدل من ذلك كا ولا أكبر يمتكويني بدل طونا إلهي كمال بديان إلا هذيك الجيران في كتاب كسبي مبين عد له محفوظك أي الله يقول رب سبحانه وتعالى كتاب مبين عد أو وحول بافتيمينية أو له محفوظ كيها أي الله يقول رب سبحانه وتعالى درده والشيء وحوير والبدء إنه روح الانترين ودودي عست القرآن شان يرى دودي عست يرير بالانترين يو وحي الله يراهم لكن ذرة إمك علمي جي عصر أنا وحي نقطي وأتم كان بأتوم كواحد لهذا أتوم كان بأتوم كواحد لهذا إلكترونية نيوترونية بروتونية وحنا يقيبيانه وغير وحلا شيء قد وإلمنت كواح والبا وغير عنصر كا وحكست وغير ويان باللي المهم وحا وغير حتى كاكو كير وإيمان دورا بالربا لشيء هدوجرو أما متكوين إلهي وأوجي سبحانه وتعالى إلهي وحبا كما قرصوبين هذا وحي لو قادني وحوينيه لو أركي كا هدو يهين إلهي وأوجي وما يعزب كما اللي بدايو صار اللي بدي ما قرنيه كما قرصومي عن ربك من مثقال ذرة وحوير وحلاق مثقالك وحلاق وميزانك وي ذرتنا وحوير وينغا نري مضاف إليه هذه إضافوين كالله حاجة دنبال لقبضة لقيمة markaynu laqbaynayna min misqaali daratin daraan ku horreysiinayna wamaa yacsubu kama libdho ma qarsoomo can rabbika rabbigaa kama qarsoomo min misqaali daratin waxa wax ugu yar wax leeg fi lardi dhulka dhexdiisa kagama libdho walaa fi samaa'i iyo samada toona walaa asqara mid ka yar min daalika kaas walaa akbara mid ka weyn ma jiro ilaa haddii kale waxaa lagu dhigay في كتاب مبين عد الله محفوظك ألا وارغويا إن أولياء الله إلهي أولياء ديس لا خوف عليهم عبسكركو ضميهان ولا هم منا يحزنونك ومرود الذين كوي آمنوا ألا الربي وكانوا هذا يتقونك والله كبقية لهم وحيلين البشرى فرح قليل في الحياة النرشي الدنيا هو سيسد حديد إيوه في الآخرة آخرة لا تبديل وحبدل يؤدورين يا مجرو لكلمات الله إلهك المديس ذلك كاس هو يسوى الفوز الليبانوي العظيم الوي هالك وحا لينود يفتيمينيا ولي قال لك ورمي ولي ورنو أوليين وذلان وهذه قال بابا ولي يدي إنه ولي ووحيالها إنه شهلوا إنه جهلوا نو البرطة نكو تشعلادون بأولي نكي نفتيس النعضان والشيطان أجنبي ميسان كي نواقع هلا يقرأ عليه نقضي خير والبناء ضيقي دلي وأولي وتلو السيارتد مد جيل قادي لكم متشري مياه وحصوا عليه ودنا أما مثل بدل متشري مياه جابي أو ذولي خير والبكود وأولي بسرعة ما يوم أقوى ولي قوام حي ولي ومحط إنك واحد كلو ولي من بلايا أو تمر ما أنتوا سمعت كعبة أن كنت كذا إلى أنا وولي أكتر لو كان بيسووا ضعفوا كعبة كنت كذا وحولي مدي يسووا وحوية وحركية وروح بدن باكر ساحر باكرية وحكة ساكرية سلف كي واحد هذين هذا ركتني ما صلى صعرا أو عركي يقول كده الصلاة هذا ركتو طول يوم ديارين وولي إلهي ونهارني عمل كيس هناك هذا عمل كيس في عيني وولي دكوسي وكرامه هذا عمل كيس اللي يتنا وروى الشيطان عقوبة القلي سو الشيطان كيف ما صلى الله يوم الدولاي سو الشيطان كيف إذا ما مله قرم الدولية سوما ولي محل وقرت ولي رامنا مله بوقنا إسكمكي بلاينا إسكمديو ولي أستان قلوب ولي ومؤمن إلهي كبقيو قف كستو مؤمن أو تقوى لبا ولي هذا ولي
laakiin weligii baa darajaleed waa la kala sarreeyaa soo mu'miniintu ma kala sarreeyaan waa la kala sarreeyaa mid baa markaa mid baa maxaan ku leeyahay brumi kala soo yani waxa weeyaan mid baa maxaa yani darajadii koowaad leh mid baa tii labaad leh rag baa labaalayaala rag baa saa u socode rag baa xidigii ku dhammaadeen rag baa xidigaba dhaafo gaashaama sii maraya saa baa loo soconaya saa darajada adduunyada loogu kala sarreeyo ayaa de welinimadan loogu kala sarreeyo ilaan waa iimaanka wey iimaankii baa wax la miisaamaya ah dadka hore haragga inta saa ululaan ba odhan jiray kana waa waafi kana waa boosh ba odhan jiray harag baa laga tegi waaya saan inta la qaadaa la odhanayay ninka sayladu intu midna saa u tuuro odhanaya kani faa'iido male midna waa boosh midba waxbaa lagu sheegaya war dadkan quluubtooda la weegaya weligaaba adugu de halka doonta isgaadhsii ilaahay baa kuu fiirsanaya ilaahayna miisaankiisu ma qaldamayo halka lagaa eegaya waa iimaanka qalbigaaga ku jira qalbigaagaa waxaa ku jira wey quluubtana waa afar qalbigaa dadka oo dhan ku jira hadda waa min fircawn ilaa nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh quluubtu waaba afar qalbi wuxuu nebigu uri waa qalbi nuur baa ku jira oo waa iimaankii oo wuu shidmayaa oo wuu iftiimaya iskiibuu u nuurayaaba waa qalbiga mu'min qalbina waa qalbi muqlaqo waa mid xidhanba waa quful baa lagu jabiyeyba waa aqal inta laga guuray la qufulay qam meel laga gelaya aanay jirin waa qalbiga gaalka khayr iyo shar midna ma gelayo yani khayr shaqa kumana shar isagaaba u hele qalbina waxa weeye waa qalbi mankuus khatar ah waa mid la dabagediyeyba sidii weel wixii ku jiraba inta laga heensaday la foorariyey oo kale weeye amba la tuuray maad arag imika waxaa jira weel yaroo inta la iskugu shuba la yidhaha one time use iyo mar qura la isticmaalaa oo intaad wixiiba ka fuuqsatun baa la tuuraa isaga rajo lagama qabo waxaa imika wax la isku siiyo o dhan waa tuur soo maha midna waa qalbi inta wixiiba laga dhamaystay faaruq oo la tuuray waa mankuus waa la dabagediyey waa munaafaqa intuu xaqii gartay haddana dafire inkire buu nebigu midna waa qalbi musafaxoo waa qalbi waran uu wadhan yahy markaasaa khayr iyo sharba way ku socdaan isaga marna xagga khayrkunbuu u yar badinaya mar wuu ambaberayaa waa kaa taqwad iyo tusbaxa iyo qur-aankii waa kan daynu u badannahayd nuur baa ka baxaya ayaama uu shidmaya ayaamo kalena way ka madoobaanaysaa waa kaaku kufaye ee sida kale ah ee laleeyahy war sadig shala hagaagsanaa maxaa maanta kugu dhacay miyaanad hebel ahayn waa qalbigaa wareersan waa musafaxa uu wadhan yahy markaasaa wanaagga ku socda iyo xumaanta ku socdaa waa sidii geed baqala buu nebigu yidhi oo biye ka dhargaya siduu u baxaya waa si cajiiba xagga wanaagga waa sidaa xagga xumahana waa sidii nabar intuu qurbay malaxaystay wey haddii la sifeyn waayo kaasina siduu noqonaya isaguna khalaas wuu bukbukayaa soo maa isaguna waaba sidaa un adu qiyaas haddaad qalbigaagaas u wadhaye aad ayumaa maadadayni qalabat cala alukhraa qalabat calay labadaasaa ku socdo wanaag iyo xumaane kii u badiyun baa la tegaya wey ka qalbigaaga ilaaliyo haddaad khayrka iyo wanaagga iyo nuurka iyo dacwadda iyo dikriga haddaad ku wadid wuu nuuri haddaad bacsida iyo beenta iyo laqwiga aad ku badisidna wuu dhimanu wuu dhaacaamaysan dheecaanka un baa geli doona marka quluubta hala ilaaliyo haddaba weligu dadku waa laba un yaan lagu qalbi dadun weli ma jiraan dadku waa laba un imaa inaad tahay weli ilaahay iyo inaad weli shaydaan tahay labadaa mid wey aduma weli ilaahay baa tahay mise weli shaydaan labadaa un kala dooro weliga ilaahay waa ka mu'minka taqiga ah weliga shaydaankuna waa kii intaa laga waayo labadaa kooxood baa loo kacaya waana lagu kala derajo sarreeyaade waa lagu kala derajo sarreeyaa mid baa nuurkiisa iftiinkaba u soo baxayaade oo wuxuu idhaaba la aqbalaya nebigu wuxu uhi saxaabadiisa waxaa ku jira rag baa idinka mida wallaahi low aqsamuu cala allahi la abara bal u fiirsa halku nebigu gaarhsi hadday ilaahay ku dhaartaan ilaahay dhaartooda u socodsiinayaa buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaahow saasi dhici maysa hadday dhahaan ilahay ma dhacaysa buu odhanaya minhum albaraa ibnu maalik baa ka mida buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxaabigiisi baraa ibnu maalik raggaa baraa baa ka mida buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa albaraa ibnu maalik baraa ibnu maalik baa ka mida buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh de halkaa bay derajada ragna gaadhayaan wey marka ilahay wuxuu inoo tilmaamayaa weli wacayo rabbi wuxuu leeyahy alaa waar hooyaay
ina awliyaa allah ilaahay awliyadiis laa khawfun cabsi calayhim dushooda may ahaan walaa hum mana aha yaxsanuuna kuwa murugoonaya buli rabbi subxaanahu wa tacaala eeg khawf iyo xusni muxuu yihi laa khawfun cabsi calayhim dushooda may ahaan oo waxa soo socda kama baqayaan wax walba ilaahay wuu u sahlaya u fududaynaya walaa hum manaha yaxsanuun kuwa murugoonayo wixii soo dhaafay kama tiiraanyoonayaan ama qoomamaynayaan alla maa sidaa yeelo alla maxay saa u noqon waaye rag odhanaya ma aha buli rabbi subxaanahu wa tacaala cabsina daa murugna daa buli rabbi subxaanahu wa tacaala mar walba arrinkooda waa sax wey waa boqolkiiba boqol ilahay wuxuu leeyahy aladiina kuwii waa aya awliyadu ilaahay cidna ugama tegin ilaahay cidna uma dayn nooc gaara kama dhigin aladiina kuwii weeye aamanuu alla rumeeyey wa kaanuu ahaa yattaquun kuwa ilaahay ka baqa maaha kuwa aan tukanin maaha kuwa iska fadhiidha kacbadan kusoo tukan ilahay wuxuu lehy aladiina kuwii weeye aamanuu ilaahay rumeeyey kow laba wa kaanuu ahaaday yattaquun kuwa ilaahay ka baqayay buli rabbi subxaanahu wa tacaala raggay taqwadu qanjaha joogso ilaahay awaamirtiisii ku fuliyey ilaahay wuxuu ka reebay ka tegey kuwaa weeye waxau rabbi leeyihi falwaliyu huwa almu'minu ataqiyu weligu waxa weeye waa almu'min attaqiy waa mu'minka taqiga alla ka cabsiga badan baa weliya ilahay baa saalix aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun xadiiskii nebigu wuxaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nebigu wuxuu yihi ina lilaahi cibaada ilaahay wuxuu leeyahay addoomo maa hum biambiyaa wala shuhada addoommahaasoon ambiyana ahayn shuhadadii diinta u dhintayna aan ahayn haddana nimankaa yakbiduhum alambiyaau washuhadaa waxa kamanaya oo kahanaya oo halkoodaa in la dhiga doonaya ambiyada iyo shuhadada buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh yowma alqiyaama limakaanihi min allah ilaahay darajaduu dhigay awgeed ayay halka ambiyada ayaa odhanaya ilaahu halkooda nebi yani shuhadada ayaa halkooda tamaniyayeen qaaluu waxay dhan akhbirnaa manhum raggii ragga ahaa ee saxaabadu way noo dadaaleen iskamay dhaka weynaanoo may dhegaysanuune waxay manhum waa ayo rasuulka ilaahay waa ayo waa kuwama waa kuwee wamaa acmaaluhum camalkoodu muxuu yahay waa reer ayo reer ka yihiin camalkooda iyo shaqadooduna waa noocee ay yidhaha nebi allah falacallanaa nuxibu midha maxaad ka doonaysaan inaan jeclaanaan la arka markaan garanno inaan jeclaanaan la arka qaar nabigu wuxu uhi bal u fiirsaa daba ee halkan bay ku taalla cidlay ku taalla odageenni baadiye muxuu yihi alla janna maxay dagatay sow maaha way ku ag taalla adiya waxaad yeeshidba wuxuu yihi hum qawmun taxaabuu fi illaah waa qolo waa rag waa qolo taxaabuu fi illaah ilaahay dartii isku jeclaaday calaa kayri arxaamin baynahum wax rixim ah iyo abtirsiin ah oo ka dhaxaysa iyadoona jirin ilaahay dartii unba isku jeclaaday allahu akbar abtirsiin iyo rixim iyo kama dhaxayso walaa amwaalun yatacaaduunaha xoolo aysa siiyaan iyo waxtar ay isku tareen adduunye iyo kama dhaxayso bal u fiirsa labadii ugu khatarsanaa maxay dadku isku jeclaadaan waa ninku waa reerkayagiiyo abtaanu u nahay iyo annaga wax meel baanu iska xididaysanaa iyo intaa waa la ysku jeclaada waa la yskugu ciidmaa waxaa kaloo la yskugu ciidmaa ninkan miyaa wallahi maalin aan baahnaa ayuu dhulka iga qaaday ninkan miyaa xoolaa iskugu kaaya jira waa nin geesiyo xoolihiisa lagama gaajoodo xoolaa la ysku jeclaada haddaba kuwani waa rag ilaahay dartii bay isku jeclaadeen xoolana iskumay jeclaan rixim iyo qaraabo ka dhaxaysaana ma jirta buu yihi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nebigu tilmaam uhi fawallaahi ilaah baan ku dhaartay ina wujuuhahum la nuur wejiyadooda waxaa ka muuqda buu nebigu yihi nuur baa ka muuqda wa inahum la calaa manaabirin min nuur waxay dhakada ka saaran yihiin oy fuushan yihiinna min bara nuura bay fuushan yihin iyagii baa nuuroo walaacwalaacdahay halkay saaran yihiinna waa nuur laa yakhaafuuna idaa khaafa annaas dadku markay baqaan ay cabsi ku dhacdo iyagu ma cabsoonayaan walaa yaxzanuun idaa xasuna annaas ma murugoodaan markay dadku murugoonayaan buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh
markaasaa nebigu wuxu uhi alaa aayaddan buu akhriyay alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aayaddan buu akhriyay ilahi subxaana wa tacala wuxu leey lahum waxay leeyihin albushraa bushaaray leeyihin faraxgelin fi lxayaati noloshii addunyaa hoosaysay dhexdeeda iyo wa fi laakhirati aakhirada noloshan adduunyana waa loo bushaaray leeyihin aakhirana bushaaray leeyihin oo bushaarada adduunyadu waa maxay bushaarada addunyada waxay dhahan mufasiriintu aakhiro garanooda bushaaradeedu waa janno adduunyada waa maxay waxay idhahdeen mufasiriintu waxa weeyaan marka nafta laga qaadayo weli adduunyadii bay joogaan soo maha malaa'igtii baa u imanayso kafan sita jannada ay ka soo qaado markaasaa malaa'igtii baa u bushaaraynaysaoo leh naftaan idinka qabanaynaa hawarwarina markaasuu farxaya u leeyay goorma uu farxaya ilan jannadii baa loo qaadaya halka ka gaalkiina uu didayay naftu ku cararayso ay diidaysa inay soo baxdeen la garaacayo markaa bushaaradan adduunyadu waa cinda alixtidaar bay dhahay markay naftu gurmayso ayay malaa'igtu u bushaaraynaysaa adduunyada dhexeedu wey weli adduunyadii kama faaruqin weli naftii lagama qaadin malaa'igtii baa ka qaadayso adduunyadu jooga mufasiriinta barkarna waxay idhahdeen mayane bushaaradani waxa weeye waa xadiiskii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ee uu warinayay imaamu axmed abu dardaa baa wuxuu ihi bushaarada adduunyadu nebigu wuxuu ihi hiya ru'ya asaalixa waa riyada fiican ee yaraha rajulu lmuslim aw turaa lahu waa riyada fiicane qofka muslimkii uu arkay isaguu ku riyoodo amaba loogu riyoodo adigu baa iska seexday waxaad ku soo toosta wey ninkii hebelo jannadii durduuranaya oo ambiyadii la socda oo nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh rafiiqiisa adaa ugu riyooday amba isagii baaba ku riyoodayba isagii oo ehlu janno ah bishaaradu waa taa buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiiskii imaam axmed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u bushaaraynaya markaasaa yacni waxa weeye xadiis kaloo imaam axmed uu warinayey oo abi dar uu lahaana wuxuu ihi nebiga wuxuu ihi qaala wuxuu ihi abu dar baa wuxu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow alrajulu yacmalu lcamal ninku camal buu sameeyaa shaquu qabta adduunyada nin baa masaakiin wax u taraya nin baa dacwadda ku dhawaaqaya nin baa masaajid ka shaqaynaya nin baa dad kale wax u taraaya yacni camal buu sameeya yacmalu lcamal shaquu qaban wayaxmuduhu nnaasu calayh dadkuna way ku mahadinayaan alla hebel waa sheekh fiican alla hebel waa nin sadaqaystoo fiican alla hebel masaajidkan buu ka shaqeeya alla hebel dadka wax uu taray oo kale ma jiro alla hebel waa oday fiican alla hebel wanaag dadkii unbaa carab fiicanaya marka wayasnuuna calayhi way ammaanaan nebigu wuxuu ihi tilka caajilu bushra almu'min xadiiskii imaam muslim warinaya axmedna warinaya tilka taasi buu nebigu yihi caajilu bushra almuslim qofka muslimkaa mu'min qofka mu'minkaa bishaaradiisiyo ifka loogu soo dedejiye weeyaan buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadalayntaa fiican hadaad baratid waa bushaaradiisii oo ifka loogu soo dedejiyey wey marka ilaahi subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahy lahum waxay leeyihin albushraa faraxgelin fi lxayaati noloshii addunyaa hoosaysay iyo wa fi laakhirati aakhira aakhirana bushaaradu dee waa janno weeye ilahi waa kii lahaa ina aladiina qaaluu rabbuna allah kuwa yidhi rabbigaya waa allah suma istaqaamuu deetana ku toosnaaday tatanazalu calayhim almalaa'ika malaa'igtaa ku soo degi aakhiro waxay odhan doonaan anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waar habiqina oo ha murugoonina waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun waxaad ku bushaaraysataan jannadii laydinku bushaaraynaya laydiin ballan qaaday gelinteeda ku bushaaraystaa la leeyahy markaa rabbi wuxuu ley laa tabdiila doorini ma jirta la doorinayo likalimaati illaah ilaahay kelmadiis daalika kaas huwa isaga alfawsu liibaan ah liibaantii alcadiim alweyneey wabilahi towfiiq wallah ala sawil marjana بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا